السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين حالي كان فضلا هدي نقطة سبسكرايب نوده هدا ورن لو لجوجتين واكم هسنتين لجوجتان كينا أصحابت عصبنا حلينا السود وهذا يعني لا هاي قاع مفرن كسود وهذا ما شاء الله ما أنتوا حايدين وضع وحسكير وما شاء الله فائدة فربنا أوله هويوينك عصب أما هويوينك أنا فهم سنين inta badan waxaan rajeynayaa inay fahamsan yihiin hooyooyinka laakiin hooyooyinka cusub ay ku wareersan yihiin ilmaha ugu horeeya ama kan labaad ha ahaado marka ilmahaada markuu dhashto ilaa 12 bilood uu ka gaarayo imise ayaa laga rabaa inuu noqdo head circumference-giisa ama wareega madaxiisa ilmaha way kala madaxweynaan karaan laakiin waxaa jirta average ama celcelis ahaan lagu qiyaaso ilmahaada markii madaxa laga cabirayo waxaa loo baahan yahay markaad geyso MCH-ka ama isbitaalka wixii lagu soo qorqor inaadan iska soo qaadanin oo aad tahay hooyo fahamsan wax walba ilmaheeda maxaa ka qaldan maxaa ku soo kordhay maxaa ka naaqusay inay fahamsan tahay marka tan ugu horeyso waxaa weeye ilmahaada markuu dhashto waxaa laga rabaa inuu noqdo wareega madaxiisa ama madaxiisa intuu la ekaan karo 31 ilaa waxaa looga baahan yahay inuu noqdo 34 sentimitir ayaa looga baahan yahay sidoo kaleeto hal bil markuu kugu gaaro waxaa loo baahan yahay inuu noqdo 35 ilaa 38 35 waa qaybta ugu hooseysa ilaa inuu noqdo 38 sidoo kale laba bil markuu gaaro waxaa loo baahan yahay inuu noqdo ugu yaraan 37 ugu badnaan inuu noqdo 39 sidoo kale 3 bilood ilmahaada markuu gaaro ugu yaraan waxaa loo baahan yahay inuu noqdo 38 ugu badnaan uu noqdo 41 marka labadaani tiro waxaa loo kala qaybiyay ilmaha way kala madaxweynaan karaan marka 4 bil markuu gaaro waxaa loo baahan yahay inuu noqdo ugu yaraan 39 sentimitir ilaa 42 ugu badnaan sidoo kale 5 bilood markuu ku gaaro waxaa loo baahan yahay inuu noqdo ilmahaada madaxiisa wareegiisa 40 ugu yaraan ugu badnaan waa inuu noqdo 43 sidoo kale 6 bilood markuu ku gaaro wuxuu noqonayaa ugu yaraan 41 inuu noqdo ugu badnaan 44 uu noqdo sidoo kale waxaa 8 bilood markuu gaaro waxaa la rabaa inuu noqdo wareega madaxiisa ugu yaraan 42 ugu badnaan waxaa la rabaa inuu noqdo 45 10 bil markuu ku gaaro ilmahaada waxaa loo baahan yahay inuu noqdo 43 ilaa 45.8 inuu noqdo ayaa loo baahan yahay sidoo kale 12 bilood ama hal sano markuu ku gaaro ilmahaada waxaa la rabaa inuu noqdo ugu yaraan 43 sentimitir ugu badnaan uu noqdo 46.5 marka caruurtu isku madax ma ahan ilmo ayaa madaxooda waaweyn yihiin ilmo ayaa madax yar yar bini'aadamka ilaahay sidoo uu abuuro bay kala yihiin isku mid ma noqon karaan kuwa hooyada isla dhashay ayaa kala duwanaan kara qaar ayaa madaxweynaan kara qaar ayaa madax yaraan kara marka ugu yaraan iyo ugu badnaan ahaan sidaas baa loo yiri qaybtan hadda aan ka hadalnana waa wiilasha gabdhahan waa ka hadli doonaa insha Allah taala inta ubad haysto Allah u barakeeyo intaan haysan ubad xalaala oo degdega oo baariyaal Allah siiyo ما شاء الله هو يوالبا waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideysatay kaarkaada caafimaadka oo ilmahaadu leeyahay markii lagu soo qor waa inaad akhrisaa fiirisaa bishii hore maxaa ku soo kordhay bishan maxaa ka naaqusay waa inaad fahamsan tahay ha noqonin hooyo wixii loo soo qor boorsada iska gashata marka ilmahaada waxaa loo baahan yahay bil walba marka geyso isbitaalka ama MCH-ka inaad la socoto wixii ku soo kordhay iyo wixii ka naaqusa hooyooyin fara badan baa jiro oo haddii ay yaqaanaan xitaa qaar baa daneyninbo iska soo qaada boorsada iska gasho ma aha taas waa inaad la socotaa ilmahaada ilaa hal sano uu ku gaarayo soo dhawaada ayaa idin leeyahay mar kale